barnaamijka maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa iska kaashaday dawladda Soomaaliya bangiyada Soomaaliyeed ee gaarka loo leeyahay iyo deeq-bixiyayaasha caalamka gaar ahaan dawladda aan aad u saaxiibka nahay ee dawladda Mareykanka waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa safiirka Ambassador Yamamoto iyo madaxa USAID oo iyaguna iska saaray xil dheeraad ah si aan maanta halkan isugu nimaadno wayna ku mahadsan yihiin garab istaaga ay garab istaagan yihiin mar walba dadka Soomaaliyeed waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin barnaamijkan waxaa ka faa'iideysan doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood maanta halkan fadhiyaan oo dalka oo dhan ka kala yimid waxaa la ii sheegay in kooxda ugu horeysa ee barnaamijkan ka faa'iideysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardho iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinayana waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha kalluumaysiga tamarta iyo tiknoolajiyada faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhalinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka kobcinta dhaqaalaha qoyska barashada xirfado iyo shaqo abuur ka mashquulinta dhalinyarada dembiyada iyo xagjirnimada ujihaynta dhalinyarada mustaqbal ifaya madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin sidaas daraaddeed maantay waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xilqaamay inay rajo geliyaan dhalinyaradooda maalgeliyaan dhalinyaradaas waxaa muuqata rajo weyn waayo bilowga mashruucani waxa uu muujinayaa hami iyo yididiilo waxaan leenahay rajo weyn waayo halkan waxaa isugu yimid dhalinyaro waxaan leenahay rajo weyn waayo ciidankeenna maanta Soomaaliyeed madaxdiisa iyo xuduudiisuna waa dhalinyaro waxaana ciidankaas labadii sano iyo barkii ugu dambeysay annagoo la kaashanayna saaxiibadeena beesha caalamka oo ay dawladda Mareykanka ugu horeyso dib u habeyn casriyeysan sababtoo ah dhalinyaradaas ciidanka ku jirta hamigoodu waa mid ka duwan hamiga argagixisada halka ay dawladda Soomaaliyeed
iyo inta garab taagan iyo ciidanku ku mashquulsan yihiin shaqo abuur argagixisadu waxay ku mashquulsan tahay siday u baabi'in lahaayeen mustaqbalka dhalinyarada gudcurna u gelin lahaayeen rajada kuwa soo koraya laakiin dhalinyarada halkan fadhida iyo ciidankeennuba marna argagixiso kama aqbali doonaan hadafkooda guracan waxaan leenahay rajo waayo marka usbuucyada soo socda wejiga hore ee deyn cafiska la galo oo dalka wejigiisa koowaad oo deynta laga cafinayo ay soo xaqiiqowdo usbuucyada soo socda waxaa la heli doonaa fursado badan oo kobcin doona dhaqaalaha abuuri doona shaqooyin wax ka bedeli doona adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka xoojin doona dowladnimada unki doona fursado ay dunidu dalkeenna ku maalgashato ganacsataduna uga faa'iidaystaan noo sahli doona dib u dhiska iyo midaynta dalkeenna waxaan leenahay rajo waayo waxaa wax iska beddeleen dhaqankii dowladnimo oo ugu yaraan aad og tihiin in qof waliba oo u shaqeeya dowladda uu helo mushaarkiisa laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 bil walba marka ay dhamaato 30keeda waxaa jirta rajo waayo waxaa lagu soo qancayaa in dowladnimada aan lagu danaysan laakiin loogu daneeyo shacabka Soomaaliyeed waxay muuqata rajo waayo dhalinyarada Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay qayb ka noqdaan dowladnimada lana xisaabtamaan madaxda Soomaaliyeed waxaa muuqata rajo sababtoo ah waxaa soo xoogaysanaya in lala dagaalamo musuqmaasuqa lana yareeyo ku takrifalka hantida dadweynaha waxaan leeyahay waxaa jirta rajo waayo dhalinyarada hadda ee hor fadhida ee hanka sare leh isla markaana doonaya inay mustaqbal ifaya dhistaan waxaa laga ii sheegay in 30% ay yihiin gabdho Soomaaliyeed sababtoo ah gabdhaha ku soo badanaya hoggaanka dalka waa iftiinka mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay rajo waayo dhaqdhaqaaqyada cusub ee siyaasadeed ee dalka ka socda waxaa horseed u ah dhalinyarada waxaa tusaale ah baarlamaanka cusub ee hadda laga dhisay Galmudug 65% waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay inuu yahay bilowga isbeddelka siyaasadda dalka sababtaas daraaddeed ee aad arki doontaan in kuwii hore ee ka waaweynaa dhalinyarada ay mar walba isku dayaan inay hor istaagaan isbeddelkaas idinkuna waxaad u taagan tihiin inaad diidaan waxaan leeyahay waxaa jirta rajo waayo tirada dhalinyarada wax baratay ee dalkeenna hadda way ku 3 jibaarmaan kuwii sanadihii hore wax soo bartay waxaan leenahay rajo waayo dhalinyaradeennu waxaa furmay indhahooda haddana waxa ay fahmeen macnaha ay ku fadhido nabadda iyo dowladnimadu rajadaas iyada ah si idinka oo ay mas'uuliyad idinka saaran tahay aad haddaba uga miro dhalisaan waxaad ogaataan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaad qiimo weyn ugu fadhidaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa inaad ogaataan in dhalinyaro la idin dhowraayo waa inaad ogaataan in la idin dhararaayo waa inaad ogaataan in idinka la idin sugaayo waa inaad ogaataan inay Soomaali idinka idin shinsanayso
وأنا دواتان إن إذن كذا ولايان مركز مستقبل كود اللاجو وأنا دواتان للن يروي إن ليدين هوية وأي النلاشة يدول النمذو وقرء سديب وحل الدنيا حلكة يحولها أمد الصوماليات إن إذن كل إذن كسور رجيو لو رجيد أود الدولة النمذا يدلكو معنى هذا معهن كلية إن السياسة النقطة لكن أود دقالها جذيه سايي كجرتا أود أقوان تايي كجرتا أود هالأبور كايي كجرتا أود أباب الكينا يسكدوبنان تينايي كجرتا أود من مدينة كجرتا اسبدل جود وهذا دينكو هرسات النقطان ودلك لغو سمايو أي أود كجرتا وإن اللي يرادا هل كان السجود تميد وفرصة للسيء يكوى فرصة هلي دونا سندها صوص عدا ونجينا إنه إن بقولال كن أي جناعسي يوحبرشي وفايدين دونان مشروعا ما أنت بلوجا وأنا دوجاتان إن دلكو إذن قود الرينا يو مرناها إللو بينا مركا اللي يروي إن هذا إذن كتهين دحالك دلكا إن هذا إذن كتهين دافتي مستقبل كدلكا إن هذا إذن كتهين روحي أمدا إن هذا إذن كتهين دارتي علنكا إن هذا إذن كتهين ديجي حرني ماذا إن هذا إذن كتهين دعنتي عدوة إن هذا إذن كتهين ديدتكي هرمركا يرسمه من نماذج الصومالية سيادوغا ميرا دالسان هميغاس يديديلا داس دالي يروي إذنكو وإناد ugu horeyntii gacmaha isqabsataan waana idinku ka bilowdaan hadii kuwa kale heshiin waayeen inaad laabta isu xaartaan inaad idinku qalbiyada isu furtaan in codadka idinkugu yeeraya dambiyada iyo quusta rajalaanta iyo dubadhaca aad diidaan dhagahana ka furaysataan dhalinyarada Soomaaliyeed وأين هذا غبشان صوماليا هل طريق كليها أفرن والطريقة يتبدل كأيد اللي يردوا هرمود ككيهين والطريقة يتبدل كأيد اللي يردوا يجوا إليهين والطريقة اللي يرد هذا النجا إسكال الدلكة كه بقول كيبات الضواتن إيشان ولا صورنا في وقته هو أن دلكة يجوا لهين أي معمول جيران أنا قاعد نلوري إنه أهمل كيلياشة وما تنتين صوماليا نلاش